mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa kulan ku yeeshay xafiiska wasiirka marwo fawziye maxamed sheekh waxayna ka arrinsadeen hirgelinta mashaariic dhowr ah oo lagu dayactirayo xarumaha wasaaradda tamarta oo haatan deegaamaysan doonta xaruntii hore ee wakaalada biyaha ee xamar ee degmada wadajir ee gobolka banaadir. hay-adda socdaalka adduunka IOM ayaa wasaaradda ka taageertay dhismaha xarunta shaybaarka biyaha iyo goobo kale, waxaana kulankii maanta si gaara diiradda loogu saaray dhismaha xarunta wasaaradda kaasoo dhowaan la bilaabi doono dhismihiisa sida uu qorshuhu yahay. dhaqaalaha ku baxa mashaariicdan ayaa waxaa bixinaya bangiga horumarinta afrika, iyadoo urur goboleedka IGAD iyo hay-adda IOM ay ka gacan siinayaan fulinteeda wasaaradda tamartii kheyraadka biyaha ee dowladda federaalk soomaaliya. kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda tamarta cismaan libaax ibraahim, qaar ka mid a agaasimayaasha wasaaradda iyo saraakiil ka kala socotay hay-adda IOM iyo urur goboleedka IGAD. cali cabdiraxmaan aadan